Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta sharafta leh waan islaamay meel walba dunida ka joogtaan kusoo dhawaada youtube channelkayga waa walaashin ifraax youtube ka daawaneysina waa ifraax channel maanta waxaan jeclaystay inaan ila wadaago leefo waa rabo gabar walaashay in aan u sameeyo insha Allah marka saxaabe leefo uu tiri badan yahay waxaa jirta noocyo badan oo leefo loo sameey karo qaab badan jirto marka aniga waxaan jeclaystay qaabka ugu fudud oo yacni oo qarash badan kaaga bixaynin hadana waqti badan ka qaadanaynin oo yacni 30 daqiiqo baa ku sameey kartaa intaan oo dhan marka ayaan jeclaystay inaan ila wadaago hadda waxaa ku haystaa meeshan 2 xabo cambo waaweyn cambahan ceeriin ma ahan biseelna ma ahan oo yacni biseelkiisa si saaid ma aha cambaha marka leefo sameynaysid wuxuu ku macaan badan yahay cambaha ceeriinka oo dhanaanka ayuu ku macaan badan yahay laakiin mid alla mid ka haystidba waa ku sameysan kartaa oo wax dhibaato ma lahan sidaas ayaan soo jaraa maadaama hal qof uu sameynayo ma rabi in cambaha yaryareeyo oo yacni wax badan ugu noqdo waxaa kale oo u baahanahay hal xabo oo yaanyo iyo jab liin dhanaanta korka ayaan ugu dari doonaa maadaama waxaan rabaa in ay noo noqoto dhadhan fiican oo dhanaan ay noo yeelato sidoo kale yaanyadani hadaa haysatid waa ku sameysan kartaa hadii kale yaanyada gasaca oo sajilaysan oo ku sameysan kartaa wax dhibaato ma lahan sidaas ayaan u soo jarjaraa intaas dhan waan isku soo dari doonaa insha Allah hadda waxaa soo qaatay digsi ayaan ku soo wada daray intii aan soo jarjarnay oo dhan ayaan hal mar dabka isku wada shubaa insha Allah waxaa kale ku darsan doonaa raqay iyo cusbo waxaan ku darsanayaa koob biyo intaas ayaan isku soo karin doonaa ما شاء الله تبارك الله sida jeedaan bajiyaha waa soo qasay waan soo diyaariyay wax yar ayaan sugayaa kadibna waan dubi doonaa insha Allah si oona leefo oo naga noqonin biyo waxa u baahnaa wax yariis oo inuu noo adkaado marka hadda waxaan ku diyaarsanayaa 5 qaando oo bur iyo wax yariis oo yacni shacfaraan ama food color hadaa haysatid midka oranjiga ama midka gaduudka xataa ku darsan kartaa ani midka gaduudka ayaan hadda isticmaalayaa insha Allah waxaa kale oo isticmaali doonaa wax yariis oo sokor ayaan ku darayaa iyo biyo waan isku soo qasi doonaa insha Allah marka hada digsigii ayaan ku soo laabtay yaanyadii weyn oo bislaatay marka shacfaraankii iyo burkii noo qasnaa ayaa korka ugu soo shubaa kadibna yaanyada ayaa soo jajabinaa maxaa yeelay ma rabin yaanyada oo nool inaan meesha ka dhex arko marka yaanyada ayaa soo jajabin doonaa insha Allah ila socdo
hadda waxaa ku shubanaa 2 qaando oo waaweyn oo basbaas ah. Basbaaska waan soo shiitay, ani waxaan jeclahay basbaaska inaan ku dhex kariyo, qof kastaba siduu jecel yahay. Marka hadda way noo bislaatay leeleefowgeeni. Marka waxaan rabaa inaan basbaaska saliiska waxyariis ku huuriyo, markaas dhadhan wuxuu noo soo baxaa maasha Allah kaala arag eh. Marka karaale noqda hal gacan waan ku duubaya, hal gacanne hol ayaan ku hayaa. Sidaan ayaan hadda bajiyaha usoo sameeyay. Bajiya qof kasta uu yaqaana sida loo sameeyo. Marka aniga waa kaya bajiyaheeni ayaa noo soo dubay. Insha Allah inta video kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaan iyo nabadgelyo.